samir iimaan Allah naga siiyo dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan samir iimaan Allah ka siiyo oo tacsiyeynayna Soomaalida dhamaan gaar ahaan qoyskii iyo eheladii uu ka baxay iyo gaar ahaan dadka reer Somaliland ee uu muddooyinkii dambe hogaankooda soo qabtay waa uga tacsiyeynayna dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waa uga tacsiyeynayna sida hadda boorka ka muuqata mar oo mas'uuliyad muhiim ah oo waagaas dalka ugu sareeyo ugu muhiimsanaa ayuu soo qabtay raad fiican oo uga tagay meeshii uu ka soo qabtay oo joogay waagaas marka madaxweynaha qof walba maalintiisu leeyahay maalintiisu geeriyooday ayadoo intaan ma dhamay iyo in kala badan oo Soomaali oo meel walba joogta ay runtii dhimashadiisana ka naxday tacsi iyo duco iyo maxaan ku oraa meel walba looga soo jeeday annaguna codkanaga waxaan ku kabaynaa intaas ducada iyo wanaaga iyo Ilaahay آخرة جنة سجيو أنت هو دعينيسو أيان أننا يكون كان عن سوون المذاء وياي وأنا تيلي رقفكه وأنا جيس يوجو حلو قرطع مركو جيريود أنت ميت كيس صور رعدة قبل جيس تماده يا أنت أتعزيسه محنك وراء أوبر ورديده وحاي دليل أتع متصال أتعي سيدا أو قفكه سقف وناكسن أو سما وضعه oo Ilaahay agtiisa wanaag u jiro sidoo uu yahay ayaa mar walba ayaa looga qaataa leeyahay waa tilmaan iyo tusaale ay u tahay madaxweyne Siraayo umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto dal iyo dibad ayaa tacsiyo loo dhigay loo barordeeqay loona duceeyay annaguna caawa magaalada Muqdisho codkeena waxaan ku kabeynaa madaxweynaha wasiir Maaraya dad wuxuu meesha yaani siyaasad looga hadlay لكن سياسة المنبر بدنا وحقوق عنتها محل سياسة محانا سياسة أهين يا كلا سارس أبان ما دون أنا ولا سدي تعزيدا مناسبة في عن إن حنكو هذا السياسة السياسة المر والبحريس خلاف يكرد دون شو حبي إلا عندنا لكن عارف أنا فرصة أنا أيضا وقف فائدة صدق الصوماليات وقوي الصوماليات دقن تعزيدا أي أطالب وحنا أيضا ربع تعزيدا iyo tiiraanyadana waa la wadaagayna farxadii maalmada weeyta ee doorashadii guuleysatayna waa la wadaagayna ayadana aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay raali uga nahay u arkayna horumar Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ay gaareen ay ku naadoon karaan tusaale fiican u noqon karo meel kasta waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed ay joogaan inta ka dhacday Somaliland in ay meel kasta Soomaaliya ay suurtagal ka tahay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay wixii fiican waa lagu daysadaayo aan ugu daysana dhamaanteen meel kasta aan joogno ayagana waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay dhiiranaanta dulqaadka bisaylka meesha ka muuqda ugu hambalyeynayna dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hamigaas qaba ama soo qabtay meel kale ilaa laga soo qabtay doorashooyinka sida Puntland dowladeedii hoos oo kale sidoo kale ayaan horay ugu hambalyeynaa waan ku hambalyeynaa dalkuna inuu meesha isu wada raaco oo xagga la isu wada aado oo dadka Soomaaliyeed dadka mas'uulka u noqonaya ay maxay doortaan waa principle mabda sax weeyaan waan ugu hambalyeynaa dadka reer waqooyi mar kale